nabadgelyo saaxiibayaal halkan waa qobnaha TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkana xilligan qodobada aan idii haynana waxa ugu waaweyn wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo kala diray shaqaalaha wasaaraddaasi waxaan idii soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee kala diridda shaqaalaha wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya kadib markii shaki weyn uu soo kala dhaxgalay shaqaalaha wasaaraddaasi qaar ka mid ah iyo wasiirka wasaaradda Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur barnaamijkan ayaan ku eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay sirta ka dambaysa in shaqaalaha la kala eriyo qodobada kalena waxaa ka mid noqonaya hadduu Rabbi idmo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo maalmahanba ku sugnaa deegaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu hadal la yaab leh ka sheegay magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar ah waa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo oo dhaliilo waaweyn u jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaan idii soo gudbin doonaa abaabulo ka soconaya xilligan Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xogta ka dambaysa deegaanadaasi iyo sidoo kale deegaano kale oo dhowr ah oo ka tirsan maamulkaasi oo xilligan ay abaabulo waaweyn ka soconayaan iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen waxa uu ka yiri dhaleecayntii eedeynta u jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi xogii ugu dambeeyay ee dagaalka ka dhex qarxay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Fiqi iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaan idii soo gudbin doonaa xogaha kale barnaamijkan aad ku daawan doontaan hadduu Rabbi idmana waxa ka mid noqonaya Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo qaaday tallaabo si weyn uga nixisay ama sidoo kale uga naxay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe iyo sidoo kale xildhibaano ka soo jeeda maamulka Jubbaland oo abaabulo ka sameynaya magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee Soomaaliya xogii ugu dambeeyay sidoo kale xildhibaanadani waxyaabaha ay isugu imaanayaan iyo waxyaabaha ay ka wada hadlayaan ee idin soo gudbin doonaa saaxiibada qiimaha badan oo qodobadaasi kuwa kale ayaan qaybtan ku faaqidi doonaa hadduu Rabbi idmo waxaan ka codsanayaa in muuqaalka sii share gareyso saaxiibadaada aad la wadaagto faahfaahinta ayaan u gudagalaynaa wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur waxa uu kala diray shaqaalaha wasaaraddaasi qaar ka mid ah isagoo arrintaani ku saleeyay in shaki weyn uu soo kala dhaxgalay wasaaradda shaqaalaha ka shaqeynayay sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur maalmihii ugu dambeeyay waxa uu waday hadallo iyo sidoo kale abaabulo ka dhana Al-Shabaab isagoo sheegayay in dagaalo adag ay wasaaraddiisu kula jirto dagaalamayaasha Al-Shabaab wasiirka waxa uu sidoo kale maalmahan khudbado ka jeedinaya qaar ka mid ah munaasabada ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo ay ugu dambeysay jimcihii inuu khudbad ka jeediyay masaajidka Marwaas oo ku yaala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir wasiirku waxa uu halkaasi ka sheegay in magaca Al-Shabaab lagu bedeli doono qawaariijta isagoo sheegay ciddii la macaamisha ama ciddii cilaaqaad la sameeyay dagaalyahanadaasi ay dawladdu si weyn uga soo horjeesan doonto tilaabo sharci ay ka qaadi doonto wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur sidoo kale waxa uu maalmahan sheegay inuu aadi doono ama uu ku wajahan jiid hore ee dagaalka isagoo sheegay in wasaaraddiisu ay ka go'an tahay inay la dagaalanto dagaalyahanada Al-Shabaab waxa uu sidoo kale culimada Soomaaliyeed uu sheegay la macaamilka iyo aadista kooxda Al-Shabaab in ay tahay mid faldambiyeed qaran lagu galayo sidoo kalena wasaaraddu ay tilaabo sharci ka qaadi doonto Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo isagu qudhiisu ka mid ah hogaamiyaasha ugu sarsareeya Al-Shabaab balse haatan ka tirsan xukuumadda Soomaaliya waxa uu maalmihii ugu dambeeyay aad uga soo horjeeda dagaalada Al-Shabaab isagoo sheegay in go'aanadiisu ay yihiin kuwa looga soo horjeedo Al-Shabaab waxa uu sidoo kale sheegay wasaaraddiisu in qayb weyn ay ka qaadan doonto howlgallada xilligan ka soconaya gobolada Hiiraan Shabeellada Dhexe Galgaduud iyo Mudug isagoo sheegay howlgallo kale inay ka soo cusboonaanayaan deegaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isagu qudhiisu uu ka soo jeedo waxa maalmihii ugu dambeeyay Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur warar soo baxay ay sheegayaan in uu ku wajahan yahay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo halkaasi ka abaabuli doona beesha uu ka soo jeedo iyo sidoo kale deegaanada gacanta ay ku hayaan Al-Shabaab ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidii gacanta looga muroojin lahaa dagaalyahanadaasina looga qaadi lahaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in shaqaalahani wasaaradda ka howlgalaya ama ka shaqeynayay in qaarkood loo sheegay in muddo isbuuc aysan soo xaadiri karin xafiiska wasaaradda ay ku leedahay magaalada Muqdisho intii laga xaqiijinayo waxyaabaha lagu tuhumayo qayb ka mid ah shaqaalaha wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya balse warcad kama soo bixin dawladda Soomaaliya taa oo lagu cadeynayo waxyaabaha lagu helay qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgalayay
ama ka shaqeynaya wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu eedeyn iyo dhaleecayn weyn u jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen isagoo sheegay in maamulkiisa uusan raali ka ahayn sidoo kale aysan ka go'anin in dagaalo lala galo Al-Shabaab oo uu sheegay in deegaanada kale iyo maamulada kale ay xilligan ka soconayaan madaxweynayaashoodana ay joogaan jiida hore ee dagaalka isagoo tusaale u soo qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen oo ku sugan jiida hore ee dagaalka iyo sidoo kale deegaanadii dhawaan lagala wareegay dagaalyahanada Al-Shabaab ee dhaca gobolka Shabeellada Dhexe waxa uu sheegay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo isagu dagaal adag kula jiro dowladda Soomaaliya uu sheegay in uu ka urinayo in ay ka qaadayaan ama sidoo kale ay dagaal ku soo yihiin waxa uu sidoo kale sheegay in xildhibaanadii uu diiday in ay deegaan doorashadoodu tagaan oo uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo laga dhigay hadda wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya isagoo arintaasi ku sheegay in dhabarjab weyn ay ku tahay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi waxa uu sidoo kale talooyin u jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen isagoo sheegay inuu xilligan loo baahan yahay inuu qayb ka noqdo dagaalada iyo howlgallada Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo maalmaha magaalada Muqdisho ka waday abaabul ka dhana madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Xamse Cabdi Barre oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya wuxuu muddooyinkii dambe ku howlanaa sidii uu jagada uga tuuri lahaa hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isagoo oo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku kulminayay ama ku shirinayay qaar ka mid ah xildhibaanada deegaan doorashadoodu ay tahay maamul goboleedka Jubbaland. sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu sheegay in inta uu maamulayay Axmed Madoobe maamul goboleedka Jubbaland uusan dhaafsiin waayay magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulkaasi. sidoo kale waxa uu xildhibaanadu u sheegay in xilliga loo baahan yahay in maamulkaasi uu isbedel sameeyo sida maamulada kale isbedel u sameynayaan. hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu la kulmayay abaabul iyo sidoo kale howlgallo iyo waxyaabaha hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe muddooyinkii dambe waxa uu la kulmayay shirar iyo kulamo ay yeelanayaan qaar ka mid ah qabaa'ilada deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo xildhibaanada deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka Jubbaland waxa ay ka arinsanayeen sidii jagada loogu tuuri lahaa dowlad goboleedkaasi madaxweynaha haatan xilka ka haya Axmed Madoobe. sidoo kale beelahani waxay sheegeen in maamulkaasi wax horumar uusan gaarsiinin madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe balse isagu qudhiisa waxa uu doonayaa xilligan inuu abaabul iyo howlgallo ka dhan Al-Shabaab uu ka sameeyo deegaanada maamulkaasi oo haatan gobol ka mid ah ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada Al-Shabaab. wararkii ugu dambeeyay qubanahan xilligan wanaginta